weligay wax ka dhiiran ma arkin oo weligay wax ka doqonsan ma arkin oo weligay wax ka aqli yar ma arkin nin intuu hadda ruux muslima dhiigiisa galo isla markiiba daqiiqadiiba naftu ka sii baxayso tan kale oo ku saabsan arintan dhalinyarada horaan uga hadlay masalada ayada horaan uga hadlay oo muxaadaraad uga jeedinay aniga waxaan rumaysnahay inta qiraa'adayda saan muxaadarada horeba ku sheegay nimanka dhalinyarada ah iyo nimanka la yiraahdo Daesh iyo inay usuushi khawaarijta tatbiiqinayaan aad baanan u tafsiiliyay muxaadaradii hore ee khawaarijta iyo fikirkeeda iyo dadka ku ta'athuray halkaasaan ku faahfaahiyay waxaan rumaysnahay usuushi khawaarijta oo sideedii inay tatbiiqinayaan hadayna ka wadarinba bal waxaan rumaysnahay ururka al-qaacida asalkiisa wax badan oo mabaadi'diisa kamida in ay naz'a takfiiriya oo khuruuj iyo muruqa ku jiro waxaan la arkay aathartan soo baxbaxaysana ee la isradinahay nafta la isu keenayna waxa la isku khilaafay waa un qolo xadkii sii dhaaftay mooyee laakiin waxyaalo fara badan oo usuul ah oo khaldan baa jirta sidaas daraadeed waxaan leeyahay jihaadku waa mas'alo jidka loo marana waa mas'alo waxaan rumaysnahay marka arintaas dhalinyaro yaan lagu baabiin oo yaan lagu khaldamin oo yaan naar la gelin oo dhiig muslim adoo khaatumadii ugu dambeysay galay naar ha ku carray weligay wax ka dhiiran ma arkin oo weligay wax ka doqonsan ma arkin oo weligay wax ka aqli yar ma arkin nin intuu hadda ruux muslima dhiigiisa galo isla markiiba daqiiqadiiba naftu ka sii baxayso